نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قال باويمي أي عربي وصادرتي وقال له صادري إنه نبي محمد عليه الصلاة والسلام دينتك ساره ذو كفرصه عتبة بن الربيعة أبو الوليد وحلو صادري إنه نبي محمد دينتك ساره دبتنا النبي قال انتو يمي بروبوسل سبوليمي يعني dad waxaan doonayso waxaasaan ku siinayna dad kan doonayso kaasaan ka dhignaa dad kan doonayso laakiin de ilaahiyada iyo waxaad warkan aad ka sheegaysaa dhaaf marka wuxuu wadaa in compromise diinta laga galo laga heshiiyo oo isaga iyo nimankii Quraysheed negotiation ay wada galaan oo nabigana la siiyo wixii uu baahan karo dad boqor doonayso boqor baa laga dhigayaa haddaad xoolo ku doonayso waxa kan anaga ninka ugu xoolo badan ka dhigayna haddaad gabdho doonayso inanta ugu fiican baa lagu guurinay yaani wixii maadiya aad rabto ee nolosha ku saabsan you will get it laakiin waxaan u baahanahay deynaynu masaa'ilkan ka wada hadallo aad ilaahiyada iyo baabkan ayda ka dayso nabigu waxa iyadoo loo akhrinayo u dhageysanay kuma oranin warbal waxa gaalkii wuxuu ku hadlayay gaalnimada saad ila timo kuma oranin ee uu dhageystay markuu dhageystay oo ninkani warkiisii gaalnimada ha dhamaystay nabigu uma jawaabin markiiba wuxuu ku yiri afaraqta ya abul walid warkii ma dhamaysatay wali mise waxba kugu haray buu leeyahay yani isagu wali rabaa inuu chance iyo afaraqta ya abul walid maga warkii ma ka soo wareegay buu leeyahay hadalkii ma ka baxday ma dhamaysato markaasuu yiri ha markaasuu nabigu aayad quraan ku akhriyay سورة صور كما كي قيبت ظهر كمدة أي النبي عليه الصلاة والسلام كو آخري سورة دي مركي ودقيستي أيونين عربي ضاف كنا قرنا يبوها يويس بدلي فيتنا ما كي عربي مركو النقضي واحدة والله ربيعة بن عتبة بن الربيعة سيدي وينك تقيسي أنا هين بولص النقضي بينها ننكي أينو دري وركا أينو خد الري معها محان قصة نقدر له قصة إمام الألباني وتحسينية في سيرته محان لنا وحويان قف كان إنه لقيس نبررت وابتلي سيء نباها يسطا لكن مشكلات كي سكنية وحن مدحي سكقو حية وحن ويسموت سيي أما وحن لو أخرين إنه كدقيس إنه ومثل بعض إنه أغاننا حواركم القرآن إلهي وحنا وشجع أنبياء حتى إلهي وحويدي سنس وإذ قال إبراهيم هو نبي إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى إلى واحد تستا ضد كان نتبر سيدا صورنا ولا ينس أما النبي موسى إلهي إلى واحد ربينا وأركو إذا سأشو واحد دون تهاهات وحنو بهنا ضد كان إنه سنه القرآن إلهي وحنا ورمى يا قال بدن حوار للسمي قار وحدي دنابة إلهي وحول قل وحد كنت هذا أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين إلهي وحول وحد كنت هذا وربل وحنا عبر يسان وعبادة ولا إيمان يسان إتصيا دولكم وحيك أبورين ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات كون كان دانا سيدان ولسان مقيب بيلي وشراك إلهي كلي ايتوني بكتاب من قبل هذا كتاب هروا حنك ورما يوسيدان كدو ديسان شيغي يهدو شركينا أو أثارة من علم أما الراد أقوميضا وحا شيغي يهدو شركينا يعني سلامكو علمي مديدنا لكن الحادكو علمي معها والشبهات ليسو جيجي ساسي أوجد با إلهي وحط المامية وارك إن لقى له قوة وحكرا عمسا المهاجة أما كوجود وما كان حنونا ذا نقول عن مركز كده جيسته وحب هيناد ما جينا هداد ضوء أقوم تعالى دينا يندو جوابته هدانا دا قوم تعالى هينا إن هدو بعض دونته طبيب كلو دوية الماجا حنون عادي مركو دعو هداد أنا نختار هين ودوين كرنين نختار بود للراد ساو سوماها
yaa dhakhtarkee fiican baad tidhaahdaa iyo takhasus wadneed yaale iyo waad waraysi tagtaa adigoo raba ilmaha inaad jiradan ka dawayso fakadalik tanna waa jiro kale uun jiro kale ku dhacday adigoon waxba war waxay ahayd inaad u raadiso tabiib kaloo daweeya tabiib alquluub dadka ah ee shubahaadka qalbiga bini aadamka gala daweeya inaad u raadiso weliba waxa fiican xiwaarkaasi inuu kitmaan ku dhaco waxay jecel yihiin inta badan inaan la ogaanin inay waxay rumaysan yihiin waayo cultural pressure baa jira oo inanka caadade reerkoodii caddaabaa walba waxaa rumaysna markaa waxa kan iska qiranaya waxba uma arko innaga waxaa jira cultural pressurku wax jira oo nebigu calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi wuxuu yidhi jaarkaygii baa khaatiga taaganay jaar aad u xun buu lahaa nebigu wuxuu ku yidhi alaabtaada intaad qaadato alaabtaadii guriga intaad ka saarto waddada dhig ninkii sidii nebigu yeelay buu sidii nebigu amray buu aqbalay alaabtiisii intuu soo qaatay ayuu waddada dhigtay dadkii baa soo mara war maxaa kugu dhacay baa la yidhaahdaa jaarkaygaa dhib batay oo dee gurigaygii baan uga imi inkaar alle kugu ridbay dadkii oo dhan bay yidhahaan waa maagaan muxuu ahaa ninkan saanu dadka u galay ninkii jaarkahabaa markii dambe u tago wuxuu yidhi waryaha dib kuu dhibi maaye soo haraysa alaabtaada wax dambe kuga yacni ninkan brasharkii mujtamaca bedelay mujtamaca cadaadiskiisii ayaa bedelay saa daraaddeed ilmahani cultural pressureka haysta buu wuxuu ka cabsi qabaa inuu sheegan kari waayo waxaan laakiin wuu rumaysan yahay wuu qarsanaya wuu rumaysan yahay oo wuu qarsanaya hadday daragtay wuu cabbayaa hadday qurunqadhaadhkan tahay wuu samaynayaa hadday tahay caqiidada tan wuu laakiin wuu qarsanaya walidaalika waxaa habboon bay yidhaahdaan ragga masaa'ilka khubarada ku ahay in xataa haddaad u geyso cid waxa khabiir ku ah inay labadoodun u dhex ahaato aanad sheegin inaad u dayso isaga iyo tabiibkiisaasi waayo lagama yaabo de intaad maalin u geyso inuu fuxuu ku yidhaahdo dabeetana u kaco maaha suurtagal waa adagtay qofka kani shubahaadkana waa ku biireen marka wuxuu u baahan yahay muddo in xiwaar u furmo labadooda tan oo masaa'il badan maalinba mid laga doodo oo maalinba mid oo waxaa laga yaabaa bila inay qaadato laakiin bila kadib inuu qancin karo waana tajribe aan aragnay rag u dhuun daloola masaa'ilkaasiyo culamo ahi dad badan oo ay diinta ku soo celiyeen oo loo keenay calaa hada alasaas bay ku daweeyeen inay uun labadooda doodda u dhexayso aan cid kaleba ogaanin siday u wadeenna ay markii dambe qanciyeen waxaan ku soo koobaya markaa ilaahay qur-aanka wuxuu inagu leeyahy wawxiya ilaya hada alqur'aanu liundirakum bihi waman balag nebi maxamed baa waxa la yidhi waxaad tidhaahdaa wuxiya ilaya hada alqur'aan liundirakum bihi waman balag qur-aankan baa laysoo waxyooday si aan ugu digo idinka iyo ciddii uu gaadhayaba ilaahay wuxuu leey wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah gaaladii la istilay mid gaalada ka mid hadduu magangelyo idin weydiisto magangeliya ilaayo intuu ka maqlaya ilaahay warkiisa baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala uma abliquu ma'manah ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya lam yakun aladiina kafaruu min ahli alkitaabi waalmushrikiina munfakiina xataa ta'tiyahum albayina rasuulu min allah yatluu suxufan mutahara fiiha kutubun qayima may ahayn may noqdeen nimanka gaaleed iyo kuwa ahlu kitaabkuba inay qalloocooda iyo diinxumadooda ka baxaan may suurto gasheen ilaa iyo uu timi maxay bayinada cad waa maxay rasuulun min allahi yatluu suxufan mutahara rasuul xagga alle ka yimi oo ku dul akhrinaya suxuf mutahara fiiha kutubun qayima baa ilaah yidhi subxaana wa tacaala waxaan rabaa inaan soo koobo waxaan ku soo koobaya wuxuu yahay shubahaadkan ma rabo inaan masaajidka kaga dhex hadlo
shubha hebla waxaasay daliishadaan iyo waxaasaa lagu radiyaa kan dadka wixii u baahan dee kutubtay ku qorantay iyo meelahay ku taalla iyo qur-aanka say u isticmaali lahayn baynu tilmaamaynaa laakiin waxaan rabnaa inaynu sheegna waxa weeyaan war meesha tan shubahaadkaasi waa tiro badan yihiin iyagoo weliba systematic ah oo iskuulinka ka bilaabma ilaa iyo jaamacadda uu qofkaasi bii'ada waxaasiya uu ku dhex jirayo ilmahaas idinku dee masaajidkii iyo maqaaxidii lagu murmayey iyo intan baa idinku tagtaan gaal kiina ugu badanee laba ula shaqeeya buu arkaa laakiin dadkan yaryare waa isku melmeen meelahan ay wax ku dhiganayeen iyo meesha inay la joogaan dhibtaasaa haysataa shubahaadkaasna waxaynu leenahay waxay dhibeen dadkii aan loo dhigin caqiidadii diimeed oo marka hore aynu moodaynay dadku sidaa ay inoogu midab eegyihiin inay ugu caqiide ekaan doonaan oo marka hore inaan xil badan iska saarine xilka ugu badan aynu iska saarray inuu noqdo qur-aanka sida loo akhriyo inaynu wax ka barno jisca muu akhriyi karaa tabaarak buu akhriyi karaa sida loo akhriyo inaynu wax ka barno sida loo akhriyo waxaa ka sii muhiimsan sida loo fahmo marka waxaan ku soo koobayaa darskeenna kan dhibtaasi waa jirtaa ubadkiina way haysataa waa mid ku fidmoobay iyo mid qarka u saaran inta badbaadisa beersantkeedu waa beersanti yar taariikhda bini aadamka soo jireenkana waxay tilmaamaysaa dadka aan iyagu wadanin manahij wax bedasho dadka kale aan bedelaynin ugu badnaan inay 3 qarni 3 jiil inay ku bedelmaan dad adugu sidii saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dad dacwo iyo diin wado iyagu dadka bedelaya yihiin oo manhaj sito oo iyagu wax dhigaya kuwaasi waa gruub kale laakiin dadkan kale iska hijrooda kolba meel iska degaa 3 jiil unbay sii noolaadaan jiilka 3aad dadku ka mid yihiin adugu kaa dashay isagoo yaro khafiifa oo afkiina midhadh ka garanaya waxoogaa cilmi dhegdhegood yarna diinta ka maqmaqlay kaasi ku sii dhala qiyaas muxuu noqonayaa dee meeshaasii jooga kaasi ka 3aad u dhala xagguu noqonayaa practicalina waa la hayaa eeg muslimiintii dagaalkii koowaad ee dunida tagtay latin america waxaa ka tegey muslimiin aad u tiro badan oo weliba shaam ka tegay dhulkan la yidhaahdo atrak baa looga yaqaanaa xaggaa markay tageen waayo baasaboorkii cuhmaaniyiintay siteen oo inay turkiyiin baa loo haystaa laakiin waa carab marka laga eego xagga dhaqaalaha iyo waxaa iyo madaxnimada iyo waa madax oo kuwii waddannadan latin america raggii xukumayey carlos mancim iyo hebel yani raggii xukumayey marka xagga lacagta laga eegana waa tujaarta ugu waaweyn laakiin xagga diinta marka laga eego way tirtirmeen xataa masaajiddu california imika masaajidadan ku yaala qaar ka mid a masaajiddii waagaa hore muslimiintaa hore tagtay ay dhisteen qaar baa hadda baarking ah masaajid 7 dabaqaa jiro hadda baarking ah waa baarking gawadhida lagu xareeyo xagga sarena calaamadihii muslimka aad kursiya waxbaa ku qoran baarkinga markaad halkaa kaga soo socoto waxaa suran calaamadaa suran islaamiyo tilmaamaya kuway sii dhaleen unba iibsaday masaajidkiina ila iyagu masaajid ba ma rumaysnayn daaruun awowyadoodii hore ka tegeen bay hayde waxaan uga dan leeyahay haddii la waayo waxaan cid iska xil saarta oo wax bedasha oo wax dhigta oo dadkana ilaalisa haddii la waayo 3 gruubaan imika idiin sheegaya unbay ka mid noqon doonaan 3 gruube trendka ah aan leenahay waa trendiska socda ayay ka mid noqon doonaan in ilaahay dafirta in qoomamka aan la garanayn ku biirta in daraga iyo waxaa ka shaqaysa noocaas unbay wakaan doonaan waxa quray ku badbaadi karaan dadkaynu u niminaynu ku badbaadin karnaa waa inaynu diintan sheegno inana isu sheegno kuwan aynu u nimina aynu u sheegno oo ilaahay kitaabkiisa dadka ugu yeedhno
wax kastoo xanuunoo jirana ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaءun waraxma lilmu'miniin qur-aankaasi wuxuu u yahay dadka mu'miniinta hudan wa shifaa shifaaءun lima fi الsuduur laabta waxa xanuun galo oo dhan midda weeyaan qur-aan baanu soo dejinnay baa ilaahay leeyahy caafimaad wax laga caafimaadana cuquusha iyo qulubta ugu fiican haddaad labadaa ka waalato waxba nolosha kale ma tarto dhadhan ma leh nolosha kale dad balaayiin haysata dhadhan ma leh noloshu waxay dhadhan leedahay markaad labadaa ka nooshahay khitaaman lidars dhibtaasaa jirta dawadiina ilaahay kitaabkiisay ku jirtaa labadaa wax baynu u baahanno aad siin inaynu samayno marka hore badbaadinno intaanay waxaas ku dhicin iyo marka labaad oo ah cilaaj fiican inaynu u samayno sala allahu calaa muxamedin wala ali wasaxbihi wasalam